وانا بيا ايه hilibkana hilibna waanuna muddooyinkii u dambeeyey deegaanada hoos yimaada magaalada laascaanood ee caasimada u ah dowlad goboleedka maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa waxaa ku soo badanayay falal cabsi iyo walaac ku abuuray bulshada kadib markii kooxo juudaanley ah oo dadka deegaanku u yaqaanaan dad qalato lagu eedeeyay inay xoolaha dhiigooda jaqaan ay hadal hayn badani ka dhalatay kadib markii kiisas badan laga diiwaangeliyay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku xiran degmada Kalabayd iyo deegaanada kale arrintaasi oo halis weyn ku noqotay nolosha dadka iyo tan dhaqashada xoolaha ayaa waxaa howlgal maalinimadii shalay ahayd lagu soo qabtay nin dhigmiirato ah kaas oo dad iyo xoolaba aanay ka nabad helin deegaanada dhibaatooyinka ugu badan sida joogtada ahi uga soo yeerayeen waxaa ka mid ahaa tuulooyinka ku dhow caasimada gobolka Sool ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya gaar ahaan degmooyinka Kalabayd Yeyle iyo Tuulo Samakaab halkaas oo dadka reer miyiga ahi ku nool yihiin nolol ku tiirsan xoolaha oo ah laf dhabarta dhaqaalaha bulshada ayaa la sheegay in si aan caadi ahayn faro kulul loogu hayay xoolaha oo dhiiga laga shaqeeyo xalay fiidnimadii ayay ciidamada ammaanka ee degmada Kalabayd ku guuleysteen qabashada nin la sheegay inuu ka soo jeedo qoomiyadda Oromada kaas oo lagu eedeeyay inuu ku lug leeyahay falal dhiig-jaqis ah oo ka dhacay deegaanka ninkan ayaa sida la sheegay muddo ku dhuumaalaysanayay tuulooyinka ku dhow degmada balse waxaa suurtageliyay in la qabto iskaashi xoogan oo u dhaxeeyay shacabka degmada Kalabayd iyo laamaha ammaanka oo si joogteyn ah u sameeya falal lagu sugayo amniga intii uu ku xidhnaa saldhigga degmada Kalabayd ninkan lagu eedeeyay dhiig miiratada ama dhiig jaqista xoolaha ayaanu u kurgalnay kaas oo kolkii aanu la kulanay codsaday in loo keeno dhiig iyo hilib cayriin arrintaasi waxay sii xoojisay shakiga bulshada isla markaasina waxay dhalisay su'aalo ku saabsan sababaha dhab ahaantii ku kalifaya falalkan lagu eedeeyay ninkan taliyaha saldhigga degmada Kalabayd Kabtan Yaasiin Yuusuf Maxamed oo aanu wax ka weydiinay xaaladda eedeysanaha ayaa sharaxaad ka bixiyay dhab ahaanshiyaha sheekada iyo qisadan argagaxa iyo walaaca ku abuurtay bulshada ee dhiig jaqista eedeysanahan Khaatimo TV wasoo dhaweynaa waxaan ka warbixin doonaa ninka kan alku xiran deegaanada isku arkisiin hilibka cunayay ninkan waxaa laga soo qabtay meel gobdheer la yiraahdo shalay baa la soo qabtay wuxuu siiyay gabadh yar la joogta gabadha diiq baa laga reebay markii dambana islaan budabcinu bay qabto islaantan diiq ka baxsatay kabacdi markaa warkiisa helay iyadoo baa ku saarnay ninkaa waa soo qabanay ninkaasi ilaa intaan soo qabanay ilaa iyo hadda wuxuu doonayaa dhiig cabo iyo hilib ceerin saaka wasay hilib aan u keenay ceerin wuu laqay ma dhaweyn wuxuu hilib kale keen gaaban soo iibiyo hadda roo keenay tii uu baqtay cunto kale cuni maayo waa qofka daalinka in dhaweyna agee waxa ka jiray xoolo dareeray oo inta ciidka laga doonayo dhiigga laga taqayo baqtay loo tagay duurkii deegaanka ba ilaa wuxuu dhumay dhagax kurow gobdheero Kalabayd aageeda intaa dadku waxyaabo badan bay sheegaan oo dee aad jirin marka wax dhacaan waa jiraan waxyaabo badan hadda la soo sheegay leeyahay nin baa la qashay iyo waxa ma garanaysaa laakiin ninkan waa daalin doonaya dhiig u salahayn iyo hilib u salahayn oo xaraana baraysiyadan weydiinina waa ninka u bareeray inuu gifto wax walba wuxuu qiraal ku yahay inuu wuxuu doonaya yahay waxa dhiigga iyo hilibka isku kala doonayn saasaan ku soo qabanay wuuna xidhan yahay taliska iyo dowladda iyo qaybtana u gudbin
muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada gobolka waqooyi bari waxaa ka jiray tuhun ah in meelo badan lagu arkay xoolo halkaa dhiigga laga jabay. cadadaas oo taagan iyo tuhunkaasoo bulshadu ay qabto ayaa waxaad ku soo qabateen eedeysanahan islamarkaasina lagu hayo caddeyn badan. runkeedu kasoo jeedaa balsabanka markaa baaritaan aasmaysa ninkan too wareysa ninkan orom ninkan wuxuu kasoo jeedaa warnada oromada wadanka hadda wadanka soo gelaya ka baxaya soo gelaya ay wax sharciga ku soo gelayaan iyo wax dukumenti cadaynaystaan aysan jirin wadanku iska furan yahay xagga Ethiopia iska soo galaan dadku wayna ka baxaan marka tuunka arigaas waa wax jira oo kaabayd iyo dhumay iyo xidhxidh iyo deegaanka marka dhacay neefka arigeeda reesaakay dhiigga laga shaqeeyo marka ninkana de wuxuu isaga cadaynaya inuu wax walba isagu doonayo dhiigga doonayo hilibka qeyrina doonayo wax bisi loo dhowaan maayo dadku sigayna de waa la hayaa oo gobeeri joogaan laakiinse cadaymihiina laga siiyey taleefonka lagu siiyey iyo kuwii annagu aanu ka helay waa isku mid waa macna daraja marka waa qofka dadka lagu sii dhexdayn karin daalinka ah waynaba u badan yihiinba dad badan noocaas in badan baa la sheegayay laakiinse annagu kanaan maanta gacanta ku dhignay haddayna ku haynaa marka wax baadhis oo kale oo aad ku samaysteen ma jirta wax baadhis oo kale annagu aan ku samaynay oo dhaafsiisan saldhigga ma jirto laakiinse insha allah waa gudbin doonaa dee seedhidii waxaan gudbin doonaa iyo gobolka waa tahay marka intaa laga tago maadaama uu deegaanka iyo dadkaba uu halis ku yahay meeshuna ay meel kooban tahay maxaa sababay inaad u gudbin weydaan gobolka sool abti waxaa sababay meeshan saldhigu gaari ma leh oo bilaa gaadiid marka meeshan saldhigan wuxuu ku yaallaa jiid dheer oo Ethiopia ku xidhan marka jiida dheer dadka noocaasna waa ka soo galaan waxaa ka soo gala kontrabank oo dhan khamriga ka soo gala waxaa ka soo gala diyabe qadarka leeyahay sharaabka Ethiopia laga keeno kala bil baa shur isagoo isaga gudda Puntland oo kale saldhigu waa bilaa gaari baahida ugu weyn qaba waa gaari laan marka taasaa kalifi weyday inaad gudbisaan duruufta keentay waxa weeye inaan gaadiid u helin ku gudbino waa Sharmaarke Mahdi Cabdi Khaatuma TV degmada Kalabay